waxaan isleeyahay dhammaanteen waa ka wada dhirigsannahay waa 19 sano kadib aasaaskii jaamacadda Simad oo la aasaasay 1999kii 6 November sida darteed waxay noo tahay sharaf iyo karaamo inaan maxaa la yiraahdaa annagoo ardayda jaamacadda Simad ee dhammaan martidaba inaan cawada koolkaan aan isula qaadano farxad 19 sano kadib waxaan isleeyahay qof 19 sano jir meesha kuma jiro waa su'aal aad muhiim ah la weydiinayo waa sidee Simad uga soo baxda 19 sano jirto marka aaday farxad noogu tahay cawada maxaa la yiraahdaa naga soo qayb gashiin waxaan rabaa mar kale barnaamijka wali nooma furna in maxaa la yiraahdaa barnaamijkan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha Simad alumni ee wadankan Kenya si uu barnaamijka ama xafladda noogu furo Bashiir Dheere waxaan rajay doonaa sacabka iyo soo dhaweynta waadankiina kasoo soo ugu horreyn waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan marti sharafta gaar ahaan bahda Simad sidoo kale waxaan rabaa in halkan ka salaamo maamulka jaamacadda Simad macallimiinta iyo dhammaan Simad family meel walba ay ka joogaan dunida dacaladeeda inta kadib markaan ka soo gudbo caawa runtii waxay noo tahay farxad aad u weyn taasoo aan soo agaasinay inaan ka qayb qaadano dabaaldegka loo dabaaldegayo sanad guurada jaamacaddeena Simad oo ahaa 19 sano kadib السلام عليكم. waxaan salaamayaa wajiyada aad u quruxda badan leh horteeda fadhiya gabdhaha iyo wiilasha da'da yar ee aqoonyahanada ah maamooyinka iyo waalidiinta kale sidoo kale waxaan salaamayaa bahda media oo ugu horeeya saaxiibkan kaamiramanka ah iyo saxaafadda inteeda kale iyo social media oo hadda live aan ka nahay Twitter-ka iyo Facebook dhammaantiin aad u mahadsantihiin haddii la rabo jaamacadda marxaladda ay soo martaa laga sheekeeyo dabcan wax la soo koobi kara ma jaamacadda 19 sano shaqeynaysay 19 kaas sano waxay soo martay marxalado kala duwan heerba heer leh culaysyo badan dabcan ugu dambeynna u jeedaan miraheedii oo hadda caawa meeshaan ay la fadhiyaan waxyaaba kale qiimo u yeelay waxaa ka mid ah environment waxbarashada ku bixiso galaasida ay leedahay iyo sabuurada wax lagu barto marka aad aragtid iyo environment wax lagu dhiganayo galaasida xitaa kuraas lagu fadhiisto kaliya xaqiiqatan jaamacadda Nairobi aan dhigano galaasida qaar ma ahna ma wada yaalaan si Simad ay u wada yaalaan galaasadeeda waxaan shaki ku jirin inaan inteena badani jaamacadda Simad qayb ka soo ahayn muddooyinkii la soo dhaafay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay 19 sano ee Simad jirtay dadkay u adeegtay inaan qayb ka noqono salaan kadib ardayhay ma barideen ma bagteen aqoontii bariyahan la soo waday baradankii ma joogsaday waa su'aal isbarashiyo isbaridin xal dheere beedka kale wuxuu yahay barkiin way maqashaane aan iskiin bare Simad ayaan ahay وأنا سلام لمانتين مقعي وساميو أنا أبوان ما هي لكن ما كانوا كله وأسكت ورتاحوا أبوان هذا وكذا لقينا هذا ما نقول كفو تحدين يرى جابان Simad بوهم بلينا وحنا هاي قلن كي قرال كقام دافش قام كلواصل وقت وحديق قاب حنا لقيه Simad قيمة هذا قياس لو إدلين كرينا qayb yar baan ka xusayaa intay qabatay ee badan qaxay dhibtii dhacay kolkay qayb dhan yaacday qarankii burburay Simad quwad aqoon siisay qayb naga mid ah kolkay qaybta kala weysay ee ay ka qoosteen inay qaayibaan nolosha qof kasta hankiisa isoo hiigsan nololeedka qaab dhismeedka sare iyo gudaha qalabka yaalaan naftu qiiro geliya qofkii booqdo goob qura qaab fikir samaantii ku qasbaa waxbarashada ee hoggaan maamul samid iyo hab ismaamulkeeda ugu tahay hormuud halka ay ku taalana Simad qiimaheeda aan qormo lagu idlayn karin maalintan qadarinta la qoyska Simad dhammaantiis hambaliyo salaam baan hatufiyada dhammaan iyo hawada ugu direen gabagabadii 2 points ka hadalfade Simad waxyaabo ay ku faa'iideeyaan boobana kooban la sheegayo go institutional capacity building institutional rules and regulations
يعني شروع كدسمين تأسيتي وين بكري دي سمة انتي سمة نجت نمبر 1 نمبر 2 سمة وحيابات سمة ولا كسو extra curricular activities يعني وحيابة منهجك بس صوت صلاة حكومة أرض جامعة السمة أنا وكذا كفاية موت يمكن أقول لها حكومة أسيت تدك حديث تدك كورة يمكن أقول لها إيه الكفاية waxaa sharaf ii ah 2011 yaa waxaan ka duulnay halkan airportkan international airportkan Jomo Kenyatta Erdogan baa degay xogo protocolka waxa la yiri diyaaradaha waa lahayd waxaan wada shaqeynayna markaas qolyo kale NGOs Turkey iyo Carabba waxaan la shaqeynayna simad waxa laga yaabaa markaas qaarkiin midan dhiganeen wax laga wadaadka maanta wuxuu yiri waa noo gambaday runtii waagaasaan la shaqeeyay airportka igu soo dhaweeyeen raggii Muqdisho markaan joogay garabkayga taagnaa bay ahayd muhiim ah magacyadooda inaan sheego laakiin sharaf bay tahay waxa laga yaabaa mar dhaxdaas oo dheerana Dubai transit ku ah Turkiga aan u socdo gabar baan aan meesha aan ku arkay transitka Sweden ay u socotay aad xagee u socota Sweden ay u socda xagee awal wax ku soo baratay simad she's very waxay ahayd gabar very runtii simad waxay kamid tahay go'aanada noloshayda marka aan qaatay go'aanada ugu fiicnaa inaan simad ku biiro ayaan dhihi karaa sababtoo ah xilligan simada bilaabay saddex dhibaato oo kaliya ka koobneed business saddex option kaliya ay tahay dadka simad ku biirto ama IT baratid ama business administration baratid ama accounting baratid qofka aqoonta uu bartay tayadeeda waxa laga yaabaa ama shahaadada ay ugu qoran tahay waxa laga yaabaa in wax badan ay soo tarin qofka laakiin jaamacaddu markay soo barbaariso han dal iyo dad iyo hogaamin iyo shaqo iyo activity iyo wax jaamacaddu markay leeyihiin jaamacaddu waxay noqon miro dhal waxaan filayaa waxyaabaha ay sida jaamacadaha Muqdisho ama dalka ay kaga horeyso inay yihiin inay arrimahaas ay yihiin hodman maxamed xuseen doobaale oo dhaliso doobaale Allah u naxariistee maxaa aniga Charles muu helin Allah u naxariisto aabahay ina macnaha la kulmo way ii qornayd wax aan ka oynay hadda ma ahan laakiin wax aad ugu faraxsanahay wax qabadkiisii aabahay Allah u naxariisto waxyaabo badan oo hadda idinka in ogeyn baa jira 10 sano ka hor waa aabe dhintay in badan waxa waaye min arkin in badan wax muusan baray laakiin productigu wax baray waxay si baran baa taagan aaba Allah u naxariisto ma uusan bilaabin hadii aan wax yar kaga sheego qaxi ka dambe qaxi ka hor buu aaba bilaabay waxbarashada inuu soo jihaado dadka u qabto waxna uu baro mana uu ka soo qaxin uu ku amaanay midaas Allah u naxariisto ani wax ita farxad weyn inaan arko mar walba tan family simad marka arkana aad u farxaa because waxyaaba ii dhiirigelinayo in anigana xataa waxbarashada aan ka fadhiisanin aan sii wato maxaa diila aad u mahadsantihiin waxaa jirta asxaab badan oo meeshaan naga soo horeysay oo runtii dadaal badan sameeyay arday badan caawiyay ayagoo ka tirsanay midowga ardayda Soomaaliyeed dalka Kenya ardaydaas waa raasimo anaga marka meesha imaanay dadkaas badan oo meesha imaadana qof walba uu ku yimaaday saaxiibtinimo iyo tashiin ku yimaaday dadkaas markii yimaadeen waxa laga caawiyay sida jaamacadaha iyo waxbarashada ay ku tagi lahaayeen iyo guryaha tagi lahaayeen anoo saaxiibada ka qariyay baa dadkaas waxa u soo gartay inaan siiyo shahaado sharaf runtii way ka qiimo badan yihiin shahaado sharaf iyo amaan laakiin waxaan gartay dadkaas inaan xogaa dhiirgelin u sameeyo qofna ma u sheegin walaashay waa maasanta gabadhan walaashay waa isha laga daayaa waxaan go'aansaday markaas saaxiibadayda inaan ka qariyo hawshaan aniga guriga gooni ugu noqoto oo aan ku dhiirigeliyo way jiraan dad badan oo shahaado mudan laakiin shan qof baa ku soo koobay dadkaas waa raasimad banaanka ma ahan dad kale waxaa jira raasimad ahayn laakiin dad badan raasimad soo dhaweeyay dadkaas waxaa koow iyo laba ka ah ninkaas Cabdikaafi Muuse Xasan Cali Sow ninkaas khayr Allah siiyo oo raasimad badan abaal ku leeyahay ninka magaalada ku soo dhaweeyay waaye dadkaas dadaan waa dareemaa sanad walba oo simad sanad guureel dhigi doono inay ka dhalan doonto dadka la shahaadada loo siin doono dadka hadda waxa u jeeda dad firfircoon oo hadda dhaqaaq la soo galay ustaad Bashiir ka mid ah asoo bijo macnaha buu dhaqaaqiisa muujiyay raasimada uu soo keenay ardayda hore ka caawiyay marka waxa rajeynaa ustaad Bashiir shahaado ugu talagelin maadaama uu bil u joogo sanadka dambe 6 November 2018 kana siin doono ustaad Bashiir laakiin hadda waxa la saaxiibada qaar oo dadaalka sameeyay inaan waco oo ugu horeeyo
hodman bare maxamuud waa gabadhii waxa waaye qayb weyn ka qaadatay inay barnaamijkan oo taabo galo sidoo kale hodman waxay dhamaysay jaamacadda USIU waa qofkii ugu horeeyay oo Soomaaliya hadda dhihi kar macnaha reer simad ah oo jaamacadda USIU dhameeyay marka hodman dad badan soo dhaweysay arday badan jaamacadaha ku xirtay arday badan waxay tusay wadada loo marin lahaa waxbarashada waa ku gubaabinayaa hodman dadaalka ay sameysay waxaan guddoonsiinayaa shahaado waxaan jeclaan lahaa hal qof inaan hodman macnaha la siiyo waxaan jeclaan lahaa qof ugu horeeya inuu noqdo hooyaday hooyo adoo maasan soo istaag baa shahaado guddoonsiin qofka labaad baan u wacyi doonaa waxaan guddoonsiin doonaa nin magaciisa meeshaan lagu xisay maantay oo aad u qiimo badan ambassador si naxariis leh ambassador waxaa kaa codsanaya meeshaan soo istaagtid qofka shahaadada aad siisid laba nin saaxiibaha isu aaday ciise salaad maxamuud ninkaan taleefka noo haya oo simad family page gacanta ku haya waxaan jeclaan lahaa in laga qabto ciise wuxuu ka mid yahay dadkii wadankan oo u fiicnaa yimaada reer simada arday badan soo dhaweeyay arday badan xog macnaha la wadaagay waxaa laga yaabaa inuu ninkaas saaxiibkiisa macnaha ugu talagalay waa qabyaalaysiinta baasha laakiin sidii aragtayna ambassador si naxariis leh aad maasanta waqtigaaga juuda noo sameysay iyo casuumaaddan aad bashay qofka saddexaad aan wacaayo Mr. Abdullah ma jooga Mr. Abdullah baa noo guddisin doona shakhsigan ninka soo harsana iyo waxoogaa uu joogo laakiin waa qof shakhsi aad u firfircoon runtii dhiig cusub iyo energy cusub wadanka la yimid waxaa la qofka Cabdiqaadir Ibrahim Maxamed Cabdiqaadir Cadde soo dhawaad saxibka waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo ninkii Nairobi ugu soo dhaweeyay jaamacadda iga soo qoray ila soo wareegay soo diiwaan geliyay saaxiibkay Cabdikaafi waxaan leeyahay thank you so much waa fiicneed baasha Cabdikaafi inaan ugu soo talagalno laakiin anaga reer simad family isku talagalnay marka Cabdikaafi naga raali loo saaxiib saaxiibada reer Soomaaliya waxaan waayeelaa Cabdikaafi qof ku soo dhawaa oo aad u qiimo badan baa hadda gacanta ku haya runtii qofkaasna abaalka aniga galay iyo asxaab badan u galay ma la iloobi doono saaxiibkay Cabdiraxmaan Xasan Cumar Misir saaxiibkiis please Cabdiraxmaan Misir waa wax badan wadana naga soo horeeyay laakiin soo horeeytiisa faa'iidadiisa waa aragnay oo dad badan soo dhaweeyay dad badan caawiyay kulli hadda jaamacadda ugu dhameeyay waxaan rajeynayaa inuu haddana master labaad ku daro si arday u caawiyo Mr. waxaan guddoonsiinayaa Mr. hoos iga saarta gabadha waca waxaan wacayaa deeqa garoodi deeqa soo dhawow deeqa garoodi waa dadka ugu fircoon oo wadankeena jooga Facebook waxay ka tahay caana ka tahay qofkaan aqoon waxa u maleynaa qofkaas had u dhashaa u maleynaa deeqa waa maasan tahay qofka ugu dambeeya yaa isdhehaysa inuu noqon doonaa talow saada qaraala waa taas xatin u noqonaya qofka ugu dambeeya waa qof aad u qiimo badan danta baalas baxa waa jirta saddex wiil oo wacay marka laba gabdhood inaan xogaa buugan naxariista fiiriyo waa ku qasbanaaday marka
waxaa jirta shakhs aad u qiimo badan ayadana oo runtii aad u dadaal badan ardo badan caawisay qofkaas waxaa la yiraahdaa xaawaluul dubad cumar fadlan saabiska la siiyo waxaana shahaadada guddoonsiin doonaa ustaad mustafa mustafa Sadow مصطفى ماشي سيمنار يمين الوقت يسقبقوا هلا كعاون نقول أصل الوقت بقى تعطى رسمات مركز شرف لي كلام نقطة مطلع أنا ما سمعتها مصطفى جلال أكو حاسوسا بلقي السيمة ده حاجة تقول روها أنا سيء أنا سوجا يقولي جب معنا ده بدنا وقت قاري ده فرق البين قلب الدلالة كده حيوان مركز مصطفى أنا ما سمعتها شكرا gabagabadii dhammaan shanta qof waxaan islahay waa shantii qof ugu mudnaa dad badan oo jiraan oo runtii ayagana mudnaana shahaado sharaf la siiyo laakiin waxaan rajeynaa sanadka soo socda haddii dagaalku sii laba jibaaraan ardada soo socta reesimada iyo ardada Soomaaliya caawin doonaan in shahaado iyo weliba lacag isku dari doono marka dadkaas dadaal hadda ha sameeyaan mustaabashada u jeeda hadda la taagay hadii loo qof caawin doonaa